madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa daahfuray ololihiisa doorashada kadib markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in doorashada la qabanayo 15 bishan. afayeenka Villa Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa bartiisa Facebook soo dhigay boor muujinaya ololaha madaxweynaha kaasoo siyaabo kala duwan loo fasirtay. Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa adeegsaday halku dhiga isbedel doonka socda oo loo fasiran karo in isbedelkii uu xukunka ku yimid Farmaajo uu wali aaminsan yahay inuu yahay mid socda. Cabdirashiid ayaa qoraalka uu soo dhigay Facebook ku yiri isbedel doonka socda ee uu hogaaminayo mudane maxamed cabdulaahi Farmaajo waxa uu dalka u horseedayaa adkeynta hay'adaha dawladda, xoojinta amniga, dib u habaynta dhaqaalaha, taabagelinta siyaasadaha arrimaha dibadda iyo gudaha, iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo adeegyada dadweynaha. 4 sano ee soo socota isbedel doonka socda wuxuu dalka gaarsiinayaa horumar ballaaran oo dalka oo dhan ka hirgala. waxa uu intaasi ku daray haddii isbedel ku noqdo qof in lagu bedelo qof iyadoo aan tixgelin la siinin waxqabadka uu la imaan karo waxa ka dhalanaysa inay habacsanaan ku timaado dadaalkii joogtada ahaa ee la geliyay 5 sano ee la soo dhaafay dhismaha qaran Soomaaliyeed oo cagihiisa isku taaga. tallaabada uu qaaday Farmaajo ayaa imaanaysa iyadoo la isku dayay in xukunka looga tuuro in la doonayo isbedel uu dalku u galo balse hadda isagii ayaa qaatay isbedelka. sida ka muuqata oraahda uu Farmaajo ku soo galayo doorashada waxa uu doonayaa inuu xildhibaanada u sheego in ragga loolanka kula jira aysan ka turjumi karin isbedel maadaama horey loo soo tijaabiyay. sidoo kale waxa loo fasiran karaa inuu Farmaajo doonayo inuu musharaxiinta ka soo horjeeda ku tiimbareeyo inaysan dalka u horseedi karin isbedel taasoo aan loogeyn siday u arki karaan xildhibaanada cusub ee codka laga sugayo. dabeesha isbedel doonka ayaa ka soo bilaabatay doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka iyadoo dabeeshaasi ay qaaday dhammaan dadkii ku dhawaa Farmaajo ee ka qayb galay doorashooyinkaasi. musharaxiinta madaxweynaha ayaa iyaguna si weyn ugu ololeynaya inay doonayaan isbedel isla markaana loo baahan yahay in meesha laga saaro xukunkii joogay 5 sano ee la soo dhaafay. inkastoo ay jiraan xildhibaano dhowr ah oo wali uu haysto Farmaajo haddana waxaa jira xildhibaano badan oo u ololeynaya in dalka uu ka dhaco isbedel isla markaana meesha laga saaro madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo. muqdisho waxaa si aad xilligan looga dareemayaa ololaha ay ku hoolan yihiin xubnaha musharaxiinta ee u taagan doorashada Soomaaliya ee la qorsheynayo inay dalka ka qabsoonto 15 bishan May iyadoo wixii ka dambeeya 15 bishan uu dalka gali doono isbedel hogaamineed taas oo kala cadeynaysa cidda noqonaysa madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota.